iyadoo maalmihii ugu dambeysay baraha warbaahinta ay qorayeen in madasha dimuqraadiyadoonka isbahaysiga xisbiga kulmiye ay u kala jabeen laba garab halka qaar ka midana lagu dhaxarkayay xisbiga mucaaradka ee wadani oo kormeer sameynayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta mar aan wax ka weydiinay xildhibaan Axmed Cabdi Kijandhe oo kamid ahaa saddexdii musharax ee isbahaysiga xisbiga kulmiye ayaa waxa uu sheegay inaanay haba yaraatay waxba ka jirin kala qaybsankaasi sidoo kalena waxa uu sheegay in mowqifkoodii mid uu yahay inta xal laga gaarayo is-afgarad iyaga iyo xisbiga intooda kale waa sida uu hadalka u dhigay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri arrinka maxaa waxba ka jiraan inta ogahay xisbiga kulmiye sidii xisbiga maxaa ku raayay garabka isbahaysiga ee kulmiye sidii uu soo haystaa bulshadiisu halkiisii waxba iskama bedelin waxaasna waa warar ku turkuteen sidoo kale mar wax laga weydiiyay ma jiraan maadaama saddex bilood laga soo wareegay shirweynihii xisbiga kulmiye intaasna aad ku adkaysanaysan mabda'a isbahaysiga dimuqraadiyadoonka is-afgarad aad weli gaadheen waxaanu mar kale yidhi sida tan kulmiye aan nahay hase ahaatee kulmiye gudihiisa ayaanu aaraaday isku khilaafsannahay iyo sida wax loo wado iyo sida wax u socdaan markaas xisbiga gudihiisa waan isku qaban karaa ray ma fahamtay marka laba mid bay noqonaysaa inaanu anba xisbiga ku noqono oo aan ka wada hadallo ka wada arisano oo aan dhamayno arrinkaas oo aan xalilo oo dariiqa ku soo celino xisbiga ama inaanu isla garan weyno arrinka waxba laga qaban karo waa aan ka tagno oo meel kale aan tagno ayaan qoray imika shirki golaha dhacwa dhacay sharxintu waa la doortay madaxweynaha xigeenkii inta waxa meeshii la halkaa u joogo in laga jooga saddexda bilood waxa u joogo bal dadkii maxaan ku oraa economy inay naga daba yimaadaan oo yiraahaan waxbaan hagaajinaynaa baan inta sugeynaa ما فهمت هدي واحد هجاتنا أهلا وسهلا وكان رسالة بقنصة بيكون معه هدي واحد من هجاتشوا وين iyadoo toddobaadkan dhexdiisa warbaahinta iyo bulshada ku dhaqan caasimada iyo gobolada Soomaaliland ay isweydiinayeen halka ay ku dambeeyeen siyaasiyiin mug weyn ku lahaa xisbiga kulmiye ayaa qaar kamid ah lagu dhex arkay iyagoo ka soo dhex muuqday goobo uu kormeer ku sameeyay xisbiga mucaaradka ee wadani oo Axmed Khalid Farax Kalson TV Hargeysa.